duhur wanaagsan dhageystayaal mar kale meel walba aad joogtaan waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 9 bisha 12 2017 warka waxaa soo saaray maxamed xasan qays waxaa si wada jir idin la socodsiinaya Maryan Muxudiin Gacali anigu Faadumo Abuukar Cabdi markana u diyaar garoobay isagiyo faahfaahsan cabsi ayaa maanta ka taagan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo shaqaalaha garoonka la sheegay in si ku meel gaar loo fasaxay dhinaca kale al-shabaab ayaa laga cabsi qabaa in garoonka diyaaradaha Muqdisho ay ku weeraraan gaadiidka dagaalka AMISOM oo ay ka qabsadeen Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa faahfaahinaya warkan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xarunta ugu weyn taliska ciidamada AMISOM ee xalane shirkado ganacsi iyo xaafado ka agyaala garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa maanta waxaa ka taagan xaalad cabsi ah kadib markii maamulka garoonka lala wadaagay xog laga helay hay'adaha sirdoonka qaranka iyo kuwa kale oo ajnabi ah oo dalka ku sugan xogtaas oo ku saabsan in al-shabaab ay weerar ku soo yihiin goobaha aan soo sheegnay warbixinada la helay ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab uu adeegsanaya gaadiid aan xabada karin oo ay ka qabsadeen ciidamada midowga Afrika AMISOM oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ee weerar ku soo yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ama xarunta xalane sida ay sheegeen xogta laga helay hay'adaha sirdoonka dalka sidoo kale hay'adaha sirdoonka Soomaaliya iyo kuwa kale ajnabiga ayaa sheegayeen weerarkaasi laga cabsi qabo inay ka qayb qaataan shaqaalaha aan rasmiga ahayn ee ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee aadan cadde qaar ka mid ah shaqaalahaasi idaacadda kulmiye ayaa heshay xog sheegaysa in maanta la fasaxay ugu yaraan 750 ka mid ah shaqaalaha ku meel gaarka ah ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo qaarkood ay ka shaqeynayeen dhismaha sidoo kale waxaa la fasaxay boqolaal ka mid ah shaqaalaha xarunta xalane oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib cabsi dhinaca amniga ah idaacadda kulmiye ayaa sidoo kale waxay ogaatay in maalin ka hor maariyaasha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho agaasimayaasha iyo madaxweynaha loo sheegay in garoonka magaalada Muqdisho la dhimo shaqaalaha muddo dhowr maalmood ah sabab dhinaca amniga ah sidoo kale waxaa lala wadaagay warbixin ku saabsan in sirdoonka dalka ay ka cabsi qabaan dhalinyaro garoonka ku sugan oo qaarkood dhismayaal ka shaqeeya iyo kuwa kale cusub oo dhawaan shaqaalaha garoonka loo qaatay in ay weeraradaas ka qayb qaataan sidoo kale maariyaasha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa loo sheegay in hay'adaha sirdoonka ay ku raajoogaan shaqaalaha ee cabsida ka qabaan laakiin loo baahan yahay muddo 3 maalmood ilaa 5 maalmood in la fasaxo shaqaalaha guud ahaan kuwa aan haysan aqoonsiyada rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya hay'adaha sirdoonka ayaa warkan ay la wadaageen madaxda airportka magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in al-shabaab laga cabsi qabo in weeraradooda ay ka geystaan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho gudihiisa sidoo kalena ay barbar socoto toogasho toos oo dhacda dhowr qof oo ka mid ah shaqaalaha ku meel gaarka ah ee la fasaxay muddada dhowrka maalmood oo ay la hadashay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay fasaxan waxayna sheegeen in markii guryahooda ay aadeen kadib taleefano loo soo diray oo loo sheegay in shaqada muddo dhowr maalmood ay fasax ka yihiin sidoo kale kuwa hadda shaqeeya oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo aan la hadalna ayaa xaqiijiyay in saakay baaritaano xoog la garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay ka socdaan eeyaha tababaran ayaa ka qayb qaadanaya baaritaanada ay sameynayaan ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ee garoonka diyaaradaha Muqdisho qof ka mid ah dadkii la fasaxay oo ay la hadashay keenin ayaa ka sheekeynaya garoonka waa la yiri shaqaalaha waa la soo fasaxay adiga inta afar beri sida waa ma ka shaqeeyay waa la soo fasaxay adiga khamiistii oo sidii ahad la loo sheegay waxa lagu fasax oo ka shaqaalaha garoonka ahay dadka waxa lagu fasaxay lama helo waxa hadii soo baxa ka bacdi waxa fadhiisi jiray baabuur lagu soo qaaday la yiri khaliiska waxa la joogo oo inta soo guriya fasax waan gartay waaye shaqada kama tasaasay wallahi warkaas inuu soo gaaray laakiin shakigaas inuu ka jira saasan inuu ku laftirkeena ka dhigan waxa inta aad joogtid inuu ku soo dhacayo aad heli kartaa oo waxa yar bidka warwaraysan kartaa dad soo baxday ka bacdi hadii lagu dhahay dadkii shaqaalaha tawaas waxa jira wili inta soo guriyaha la soo gaaray dadka mas'uuliyiinta ah soo sheegay saasan aan soo garnaa saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya oo aan la hadalna ayaa idaacadda kulmiye waxay u sheegeen in jirto walaac dhinaca amniga oo ay qabaan ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya la geliyay feejignaan dhinaca amniga ah xafiisyada qaar ee shaqaalaha rasmiga ah ee dawladda u diiwaan gashan ee ka shaqeynaya garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa sidoo kale la sheegay in la dhimay xafiisyo qaar oo ay ka shaqeynayaan 10 ilaa 7 qof ayaa lagu soo koobay 5 ilaa 3 qof oo kaliya sababtuna waxaa lagu sheegay in haddii ay khatar dhacdo khasaaruhu uu yaraado
duulimaadka garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa caadi u socota mana jirto wax cabsi ah mana jirto wax saameyn ah oo ay cabsida garoonka ka taagan ku yeelatay shaqadii garoonka gudihiisa ka socotay dowladda Mareykanka ayaa dhawaan muwaadiniinteeda waxay ku amartay in dalka Soomaaliya gaar ahaan muqdisho ay ka soo baxaan kuwa muhiimka ah ee aan soo bixi karin waxay ugu digtay in ay yareeyaan dhaqaaqyada magaalada gudaheeda warbaahinta maxalliga ee dalka ka jirtan ay la socdaan askaran ayaa maanta magaalada muqdisho loogu sameeyay taliyihii ciidanka taraafikada oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho axmed maxamed ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya Allah u naxariistay waxa magaalada muqdisho xalay ku geeriyooday taliyihii ciidanka taraafikada Soomaaliya Cali Maxamuud Cali oo muddooyinkan dambe ku xanuunsanayay gobolka Banaadir marxuumka ayaa askaran waxa loogu sameeyay magaalada muqdisho isagoona salaada janaasada ay kula tukadeen madaxda dawladda Soomaaliya sidoo kale marxuumka ayaa waxa lagu aasay isbitaalka Madiina ee magaalada muqdisho waxaana ku sugnaa aaskaasi xildhibaanada labada aqal ee dawladda Soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya taliska booliska Soomaaliyeed iyo waliba ehelada marxuumka geeriyooday marxuumka ayaa sanadihii dambe la dhacay xanuun soo wajahay waxaana marxalad caafimaad loogu qaaday dalka Hindiya waxaana lagu sheegay inuu u geeriyooday taliyaha xanuunka kansarka oo ka haleelay dhuunta sidoo kalena waxa lagu sheegay in carabkiisa qayb ahaan xanuunkaas dartiisa loo jaray sidoo kale marxuumka ayaa markii uu dalka dib ugu soo laabtay mar kale loo magacaabay taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Soomaaliya xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa Puntland ku eedeeyay inay colaad ka horinayaan gobolada Sool iyo Sanaag oo ay ku muransan yihiin maamulada Somaliland iyo Puntland Cabdiwahaab Xuseen Muxyidiin ayaa faahfaahinaya warkan xildhibaan Muuse Saciid Jaamac oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo waraysi siinayay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa maamulka Puntland ku eedeeyay inuu colaad ka horinayo gobolada Sool iyo Sanaag oo xiisad ay ka taagan tahay taas oo ka dhalatay sanaadiiqda codbixinta ee maamulka Somaliland uu soo dhigay gobolada Sool iyo Sanaag waxaana xildhibaanku wax laga xumaado ku tilmaamay in baarlamaanka maamulka Puntland ay cod u qaadaan in arrintaasi laga soo horjeesto waxaana uu sheegay in haddii shakhsi iyo laba shakhsi ay arrintaasi ka soo horjeestaan ay tahay aragti laga gudbi karo laakiin ay tahay mid laga xumaado in baarlamaanka maamulka Puntland dhammaantood ay isku raacaan guddoonkuna uu ka ogolaado in arrintaasi cod loo qaado sidoo kale xildhibaan Muuse Saciid Jaamac ayaa waxa uu sheegay in waqtigan ay socoto waan la doonayo in la iskugu soo dhaweeyo Soomaaliya iyo Somaliland laakiin Puntland ay cagta marinayso baarlamaanka Puntland oo mas'uuliyadda shacabka iyo awoodda shacabka iyo waxaasoo dhan ma garanaysaa haysta oo yaraan mas'uuliyiina haddana inay maanta ay ummadda Soomaaliyeed halkii la isu soo dhaweyn lahaa ay fadqala iyo dhibaato iyo ay ka abuuraan oo yiraahdaan doorashada Somaliland aynu khalkhal gelino si aan u qabsoomin oo wax laga yaabo weeyaan sida runtii waliba ay gacan qaad hal qof iyo laba qof fayoodu xumaan kara way soo jeedin karaan laakiin ay isku raacaan waa wax laga yaabo gudoomiyahoodu uu yiraahdo codeeya arrinkaas dad kale difaacanaya iyo dalkan ay sheegayaan ay leeyihiin waxba xuduudaha lagu soo gudbina ilaa hadda anigu waa la yaabanayba sababtoo ah waxaynu u taaganahay oo aynu mar walba u socono haddaynu mas'uuliyiinta Soomaaliyeed aynu nahay sidii ummadda Soomaaliyeed ay u mudoobi lahayd hal mid ay u noqon lahayd mana habboona inay ka hadlaan inay carqaladeeyaan inay doorashada Somaliland iyo dhulka ay joogto iyo dhulka ay maamulaan iyagu in la fargeliyo ilaa xad waa ka soo horjeeda anigu waayo sababtoo anagu halka waxaan u joognaa sidii Somaliland iyo Soomaaliya ay in uun ay isu soo dhawaan lahaayeen mustaqbalka ay isugu iman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed mid loo heli lahaa laakiin haddii maanta Puntland markastoo Somaliland horumar ay ku dhaqaaqdo ay carqaladeeyaan oo ay rabshad ay ka abuuraan waa la sii kala fogaanaya sida runtii waxaan aaminsanahay inay Puntland iyo baarlamaanka Puntland iyo dawladda Puntland qudheeda inay waxaan oo dhan iyagu ay ka dambeeyaan dadkana inay isku dhufanayaan deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag ayaa laga dareemayaa xiisad ka dhalatay sanaadiiqda codbixinta ee maamulka Somaliland oo halkaas soo dhigay waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in lagu arkayo ciidamo ka kala tirsan maamulada Somaliland iyo Puntland oo deegaanadaasi kala ilaashanaya qaramada midoobay ayaa ka digtay sii baahitaanka kooxda Daacish ee Soomaaliya sidoo warbixintani ku eegay Shucayb Maxamed Cali wakaalada wararka ee Reuters ayaa lagu daabacay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay oo ay kaga hadlayso sii baahida taageerayaasha kooxda Daacish ee deegaanada Puntland oo dhaca waqooyi bari ee Soomaaliya warbixintan ayaa lagu tilmaamay in tobaneeyo dagaalamo ay ahaayeen sanadkii tagay dagaalamayaasha Daacish ee ku sugan deegaanada Puntland hadda la sheegay inay gaarayaan ilaa iyo 200 oo kamid ah dagaalamayaasha Daacish warbixintan waxaa
diyaariyey guddi quburo ah oo qaramada midoobay u qaabilsan dhanka ammaanka waxa ayna shaaca ka qaadeen in faraca daacish ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo Sheekh Cabduqaadir Muumin marka loo eego sanadkii tagay ee 2016 ay ahaayeen ilaa iyo 10 dagaalame balse haatan awoodoodu ay gaartay ilaa iyo 200 oo dagaalame dhibaatana ay ka geysan karaan deegaanada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya. sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka maamulka Puntland ayaa Reuters u sheegay in boqolaalka dagaalame ee daacish ah ee ku sugan deegaanada maamulkaasi ay khatar amni ka geysan karaan gudaha deegaanada maamulka Puntland. waxa uu sidoo kale tilmaamay in duqeyntii Mareykanku ka geystay saldhigyo daacishtu ku leedahay deegaanada Puntland ay xaaladda khatar sii gelisay. agaasimaha sirdoonka maamulka Puntland Cabdirasaaq Ciise Xuseen ayaa sheegay in duqeyntii Mareykanka ee laga fuliyay deegaanada ay kaga sugan yihiin daacish maamulka Puntland lagu dilay ilaa iyo 20 dagaalyahan oo ka tirsan daacish. sidoo kalena uu jiro shaki ah in uu ka mid ahaa dadka la dilay qof ka soo jeeda wadanka Suudaan oo u dagaalamayay ururka daacish. warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu xisay in dhammaan taageerayaasha u dagaalama Sheekh Muumin ee daacish wakiilka uga ah Soomaaliya ay yihiin dad Soomaali ah balse la rumaysan yahay in uu jiro qof Suudaanees ah oo Mareykanku hore xayiraad ugu soo rogay kaasi oo loo maleynayo inuu ka mid noqday dadkii ku naf waayay duqeyntii Mareykanku uu ka geystay deegaanada maamulka Puntland ee daacish oo kula bartilmaameedsaday. horey madaxda maamulka Puntland ayaa uga digay in khatar amni ay ka soo wajahayso maamulkaasi daacish isku urursanaysa deegaanada buraleyda ah ee maamulkaasi hoostaga waxayna hore ugu baaqeen dawladda federaalka iyo beesha caalamkaba inay gacan ka siiyaan sidii ay uga ciribtiri lahaayeen deegaanadooda. waad mahadsantahay Shucayb. dad careysan ayaa maanta boobay xaruntii kaydka shidaalka ee magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud iyadoo buuq uu maanta ka taagan yahay magaaladaasi. wariyahayaga Sharmaarka Suuley oo Cadaado ku sugan ayaa arrintan inooga waramay. طبعا magaalada xaaladeedu way degan tahay laakiin dabcan mar aan xarunta madaxtooyada ku dhawaaday waxaan indhahay ku arkay xaruntii kaydka shidaalka oo Cadaado oo aan dhulkii dawladda oo dad shacab maaragtay ay isku haystaan maaragtay qaarkood ay leeyihiin waa dayactireen oo ku shaqaysanayna halka kuwa kalena iyaguna dhulkii qayb kamid ay googoosanayeen maaragtay ilaa mana jirin ilaa maaragtay cid soo baxday oo arrintaas maaragtay wax ka qabatay. dabcan welina maaragtay arrintu way taagan tahay. qaar ka mid ah dadka shacabka oo la hadleen waxay sheegeen in arrintan ay tahay mas'uuliyad darro oo maaragtay aan loo baahnayn in maanta Cadaado xarun ku meel gaar ah Galmudug dhulkeedii maaragtay la goosto dad shacab ay goostaan marka dhulkii dawladda marka arrimaha shacabku aad ay wax yihiin ma jirto ilaa hadda mas'uul ka tirsan maamulka oo ka hadlay dhulkaas maaragtay dawladda ama hantida guud ee dawladda oo la boobayo. dhulku ma dhul firaaqaha ama waa meel wax yaaleen meelaha la boobay meesha saakii dabcan aan arkay ilaa maanta maaragtay buuqu ka taagan yahay qaysow waa kaydkii shidaalka maaragtay halkii shidaalka loogu shubi jiray xilligii dawladii maaragtay oo dadku aad u yaqaanaan kuna taala maaragtay afaafka hore madaxtooyada oo maaragtay xarun waa maamulka Galmudug marka halkaas runtii saaka ilaa maaragtay buuq badan uu ka taagnaa dadka qaybaha kala gedisan shacabkuna ay isku haysteen iyagoo maaragtay xitaa loo wado muhiim oo meeshaas ka baxdana gooyo dhagax ku jaray oo mid walba maaragtay qaarkoodna qoryo ay wateen oo maaragtay markii aan weydiiyay sababtan waxay sheegeen in dad ka mid ah dadka deegaanka ay si sharci darro xarunta rabaan inay ku dhistaan oo ku furtaan iyaguna taa ay diidan yihiin oo haddii dhulka dawladda la boobaya dhinacooda ay ka boobayaan. wax ay qaateen oo hadda la yaqaan miyaa jira? waxa laga qaadan meesha dabcan laakiin dhagaxaan badan bay dhigeen meeshii kaantii maaragtay xaruntii kaydka shidaalka ee dawladda xilligii Siyaad Barre maaragtay sidoo kale loo wado meesha ku dhawaa dhagaxaan badan bay dhigeen maaragtay laba loor dhagax ay ku soo rogeen marka wali laakiin buuqi uu taagay ama jirtay ilaa hadda cid wax ka qabatay. halkaad warkaasi duhurnimo kala socotaana dhageystayaal waa Radio Kulmiye goordhow waxaa inoo soo socda akhbaaraadkii caalamka hase ahaatee duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono qarax wadada dhinaceeda la geliyay ayaa ka dhacay koonfur bari wadanka Pakistan ayaa lagu dilay sargaal magaciisa lagu sheegay Xamid Shakiil iyo darwalkiisa subaxii hore ee saaka ayuuna weerarkaasi dhacay xilli uu sargaalka ka soo baxay gurigiisa uu ku yaala deegaanka uu weerarku ka dhacay sida uu sheegay Cabdirasaaq oo ka tirsan saraakiisha booliska ee gobolka uu weerarku ka dhacay. sargaalkan ayaa sheegay in qarax uu ahaa miino wadada dhinaceeda la dhigay. Pakistan ayaa ka mid ah wadamada ay ka dhacaan qaraxyada lagu weeraro saraakiisha dawladda iyo siyaasiyiintaba inta badan qaraxyadan waxaa sheegta kooxaha ka dagaalama wadankaasi.
qarax xoogan ayaa ka dhacay banaanka hore ee fasal ay ku jireen arday dhiganaysay iskuul dugsi hoose oo gobolka Kagera ee waqooyiga wadanka Tansaaniya. qaraxan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen 6 arday halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 kale sida ay ku waramayaan saraakiisha ammaanka ee gobolkaasi. qaraxan ayaanan weli la ogeyn waxa sababay iyo weliba cidda ka dambeysay. saraakiisha ammaanka oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in ay weli baaritaano ku wadaan waxa sababay qaraxan lala beegsaday ardaydaasi. guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaa ku dhan warkii duuro idinkaga imaanayay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. idinkana waad ku mahadsantihiin dhageysiga warkeena. Galera Video Center channel. Subscribe for daily Somali news update. Thank you.